gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna murashaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi ay wehelinayeen mas'uuliyiinta ugu sarsareeyay xisbigaasi ayaa maanta xadhiga ka jiray xafiis cusub oo xisbigaasi ka furtay degmada 26 Juun ee magaalada Hargeysa. munaasabad loo qabtay xadhiga jirista xafiiskaasi ayaa ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi ee u qaabilsan degmada 26 Juun. ساي ما تقول صوب حين أي برينا يقول صوب عيان. وطن هيدا اللي يلا حافظ اللي حلو باتك تشوف ما كانوا عارفين إن أنا يدن تريد كوشين حسب حاكم ككلية. أنا عارف يدن تدك تريد وين يكوش تحسب وينها وطني. وحنا جوا كوبرني إن أنا سي حقه هو قضينا ونتقرب سنة نحسب وينها وطني. أتوقع ما تجوا وحنا كوبرني أنا ما كيجا مين كيجا عقل كيجا أنت بقى إن أنا بعد الرحمن الرحيم أبو حنا كاي. أديكوا إن أنا ضمن قانون سيد كلية. واتانا كوارا إلهي أكسي مالكي عمر بن الخطاب أها إن صغر الحين تبعه الله كبراعه مع فيسن مع فيسن كاسن جاي كاربون والعرادة عدوية هطو شعبك صدرتو أيرتا تهريبي سبادا والله هليه اعتراف كدوغا بيواسو دقدق أياي دايرتيو اوغوغا باغداي موداينو شوبيه دبايلها دعيا رحماد لغا دنبايسيره كل ميو ابارونا ويسكا اوردي دونان لeenahay kaalintiina ka maqnayd xusbiga iyaga waa kaalinta maanta aqalka noogu furay ee doonayna inaan ku buuqano in xusbiga iyaga ugu garab hiliyo oo ugu la garab taagnaano. sidoo kale iyaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ku meel gaadhka ee xisbiga wadani xildhibaan Cabdiqaadir Jirde iyo mas'uuliyiin ka tirsan xisbigaasi oo dhamaantoodba tilmaamay xisbiga wadani mabda iyo hawl iyo mustaqbal iyo badbaado qaran waxaan ballanqaadka ay reer 26 Juun sameeyeen waynu ka gudoonay annagaana kaaga gudoonay annagaana dhex iyo markhaatiyadii noqonayna ballanqaadkaagii adiguna inaad oofiso oo ballantaad la gashay 26 Juun uu Sheekh Axmed ka dhawaajiyay inaad oofiso annaguna markhaataanu ka noqonaynaa maanta annaka sharaf bay noo tahay inaan annako magaca sheeganayna inaanu maanta nidhaahno kulmiye uma xidhnin xadhigna nooguma xidhna mana raacayno waxaanu raacaynaa himiladayada waxaanu raacaynaa mustaqbalka caruurtayada waxaanu raacaynaa mustaqbalka quruxda badan ee himilada leh ee aanu doonayna inay yeelato Somaliland calanka iyagana sidii aanu u taagi lahayn ee aanu marna u dhici lahayn baan anaku maanta ku taaganahay maanta subax 26 Juun waxay astaan u tahay guusha xisbiyada iyo doorashooyinka Somaliland ayay astaan u tahay maanta halkan waxa ka cadaatay in suuqa laga sheegayay iyo rawaadii suuqa la sheegayay ee ahayd degmada 26 Juun caalam wadani lagama taagi karo ninkii lahaa uu been baa sheegtay saaka. dhinaca kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ahna murashaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi degmo u xidhan ma jiro magaalo xisbi u xidhan ma jirto maanta lagu kala badin maayo in caalamada wadani laga xado oo guryaha laga goosto qulubta shacbiga lagu kala badinaya doorashada shacbiga lagu kala badinaya ee calanka loo xidho wadani lagu kala badin maayo waxa lagu kala badinaya cod iyo doorasho shacbiguna maanta waxay dooranayaan xisbiga wadani si 26 Juun dooratay in shacbiga 26 Juun ay maanta kala doorteen xisbiga raaciyeen waxaanay doorteen wadani. Cabdiraxmaan Fantastic Sab TV Hargeysa.